Shantii sano ee ugu dambeysay ayaa lagu soo waramayaa in guud ahaan isbitaalada kala duwan ee ku yaala dalka Norway lagu sameeyay qalliimo khaldan oo bukaanno kala duwan oo tiradoodu lagu sheegay ilaa iyo 307 ruux ay mareen qalliimo qalad ah oo aan sax ahayn oo aan ahayn qaarkoodna qalliimadii loo baahnaa. Madaxa ururka magdhowga dhaawaca bukaanada dalka Norway, Christian Korti Hansen, ayaa sheegay in tirakoobyada sanadihii 2020 ilaa iyo 2024 ay muujinayaan in bukaanno badan oo Norway ku sugan ay mareen qalliimo aan sax ahayn oo aan loo baahnayn, qaarkoodna laga qalay goobihii ay ahayd in laga qalo goobo aan ahayn, oo meeshii bidix la rabay in la qalo laga qalay midig. Waxa uuna agaasimaha hay'addani sheegay in ay jiraan tiro badan oo kiisaskan ah oo helay magdhowgii ay u baahnaayeen. Halka ay wararka ugu doorkaraan maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.